بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الله سبحانه وتعالى waxaan rabaa inaan ka jawaab celiyo niman maamulka gobolka Gaza isku sheegaya oo daraad ka hadlay degmada Doolow ee ku dhaleeceeyay dowladda federaalka oo uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowlad goboleedka aan hadda ka soo jeednay ee Jubbaland ku dhaleeceeyay ayaan rabaa inaan ka jawaab celiyo. waxaan leeyahay nimankaas daraad ka hadlay Doolow oo maamulka gobolka sheeganaya ma ahan maamul sharci ah ee gobolka Gaza ka shaqeynaya ma ahan waa niman dowladda hore oo meesha ka baxday ay dalka ku abaabusho la ogyahay waxay yihiin. waxaan leeyahay nimankaas ma ahan afka reer Gaza afkay ku hadleen ma ahan reer Gaza dad mucaarad ah oo dowladda federaalka ah mucaarad ku ah ma ahan reer Gaza dad dowlad goboleedka Jubbaland mucaarad ku ah ma ahan reer Gaza waa dad maxaan ku leedahay dowlad jecel waa dad dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka labadaba ku kalsoon. xaqiiqdii nimankaas waa niman iska aflagaadoodii waa niman shakhsiyaal ah mucaaradna lagama waayo dad 2 iyo 3 qof iyo mucaarad lagama waayo. waxaan leeyahay nimankaas inaysan maamul sharci ahayn cid kastaba way ogtahay inay intaan haddii sii gaaraanna nafteeda waxaa la dhihi karaa waxaa qaybka dowlad goboleedka Jubbaland waxaa la rabay nimankaa mar hore inay cagta mariyaan maamul sharcina ay magacaabaan ayaa la rabi. kolley insha allah waxaan filayaa dowlad goboleedka Jubbaland kolley qiimeyn iyo waxyaabo badan ayay fiirinayeen waqtiga hadda ay maamulada magacaabi lahayeenna waa la gaaray waana la joogaa. waxaan leenahay insha allahu tacaala xilligii aad maamulada magacaaban leedeen waa la joogaa maamulkiina kolley inaad soo magacaabi doontaan waa filayaa. nimankaana niman loo qabanayo maanta warkooda reer Gaza inaysan ahayn cid kasta way aragtaa waa niman iska aflagaadoonaya waa niman maxaan ku dhahdaa waxay ka hadlayeen aad wada dhageysanayseen dowladda federaalka ee hadda uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waqti la eedeeyo lama gaarin 4 bilood ayay joogtaa. Xasan Sheekh Maxamuudna waxaan ogsoonahay hadda ka hor madaxweynihii hore oo waqtigii hore madaxweynaha ahaa inuu yimid gobolka Gaza aad loogu soo dhaweeyay asagoo qabyo ahna maxaan ku dhahdaa uu ka tagay laakiin hadda waqtiga uu qabyo tiri lahaa gobolka Gaza ay maanta u marayso. waxaan jecelahay inuu imaan doono sal muglehen u fariisan doono gobolka Gaza xaaladiisa iyo Jubbaland intaba uu si buuxda u kormeeri doono aad baan ugu kalsoonahay rajo weyn ugu qabnaa. waxaan leenahay madaxweyne eedeynta lagu eedeeyay waa niman dhalinyaro ah aan dowladnimada aqoonin ka raallaa wixii ay geysteen afka reer Gadana maaha dhalinyaradii odayaashii shacabkii siyaasiyiintii afkoodii maaha afkaas waa af loo soo dhiibaa la dhihi karaa meel loogu soo dhiibada insha allahu tacaala. waxaan leenahay raaligelin ayaan kaa siinaynaa. waxaa kaloo leenahay dowlad goboleedka Jubbaland waxaa madaxweyne ka ah Axmed Maxamed Islaam si buuxda ayaan usoo dhaweynaynaa gobolka Gaza si buuxda ayaa loogu soo dhaweeyey siyaasiyiintiisii odayaashiisii waxgaradkiisii hooyooyinkii dhalinyarada intaba waa aad baa looga ogol yahay madaxweynaha. waxaan si buuxda usii taageernay haddaan nahay siyaasiyiintii kasoo jeeday gobolka Gaza muddo gororsigii duq loogu daray halka sana ahaa aniga 10 sano ayaan boqoray ugu daray. waxaan ku xumahay xildhibaanada inay yiraahdaan waxaan ka xumahay hal sana ku daray inay yiraahdaan ayaanba ka sii xumahay. insha allahu tacaala waxaan leenahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbalandna dhaleeceynta nimankan ay dadka dhaleeceynayaan waa wax weyn ma ahan. insha allahu tacaala waxay kolley dhegta ka maqleen in maamulo degdeg ah lasoo magacaabi doono ay dhegta ka maqleen waa rag iska sii nafbaxaya wax weyn oo hadda maxaan ku rahdaa ay la joogaan inaysan jirin cid kastana oo ay ogtahay. waxaan idin leeyahay waqtigii maamulada insha allahu tacaala waa la gaaray aad dhexgali lahaydeen cid kastana way ogtahay taladeeda inaad u fadhidaanna waa la ogyahay. waxaan sugaynaa sida ugu dhaqso badan in maamuladii gobolka lagu dhawaaqa shacabka reer Gadana ha u diyaar garoobeena. kolley waxaan filayaa waqti ka socda dowlad goboleedka Jubbaland ayaa kusoo socda gobolka ayagana aad baa loo sugulayahay waana la soo dhaweynayaa. maanta waa la ogyahay maamul sharci ah oo gobolka ka shaqeynaya inuusan jirin cid kasta way ogtahay. waxa la sugayana oo cid kasta ay sugaysaan waa maamulada lasoo magacaabayo oo sharciga ah oo dowlad goboleedka Jubbaland ay soo magacaabayaan. ciddii iska dhex aragtana hadee waa inay sii shaqeysa ciddaan iska dhex arkinna waa in maamulkaas ay la shaqeysa. waxaan leeyahay dalka cadow meel kasta maxaan ku rahdaa loogu soo duulay ayaa joogo waa al-shabaab
madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo madaxweynaha federaalka labadaba waxay ka bixiyeen amar buuxa in la howlgala insha Allah taala howlgalkaasna waan u diyaar garoobeynaa cadowgaasna waxaan filayaa insha Allah sidii dowlad goboleedyada kale loogu xoreeyay al-shabaab in Jubbaland insha Allah taala sidii madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo kan federaalkaba ay sheegeen in annagana aan ugu diyaar garoowna cadowgana aan ugu xoreyna waxaan aad ugu hambaleynayaa madaxda dowlad goboleedka Jubbaland iyo madaxda federaalka waa idinka jecel yahay gobolka Gada waa idinka soo dhaweynayaa waa idinka taageersan yahay maamuladiina ayaa joogo shacabkiina ayaa joogo aad iyo aad ayaan maxaan ku rahdaa kugu mahadcelinayaa mar koowaad iyo mar labaad waxaa kaloo leeyahay gobolka Gada abaaro ba'an ayaa ka jira dadkii waa baaba xoolihii waa baaba waxa maanta mas-uuliyadooda qaadana waa dowlad goboleedka Jubbaland madaxda joogta ama madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenka ama golaha wasiirada dadkii insha Allah taala hay'adaha loola hadalaya iyo gargaar gacan maxaan ku rahdaa dowlad goboleedka Jubbaland ay bixisa lagu soo gaarayaaba dadka abaaraha ba'an ay hayaan gobolka Gadana loo soo gurmada inaad u soo gurmad doontaan waa filayaa hadda waxaan ogsoonahay qaybo kamid ah inaad gurmad u fidiseen dadkii maxaan ku rahdaa reer Gada oo hadda hay'adihii ay sida madaxweynaha ugu amriba ay raashimo badan ay bixinayaan ceel biyood ah oo ceel riig ah oo dowlad goboleedka Jubbaland madaxdiisa ay soo amartay waa kan hadda laga qodayo xarunta gobolka Gada ee Garbaarey mashaariicdii inta badan waa soo fasaxdeen sidaan ognahay insha Allah taala inta kalena waxaa la rabaa inaad si buuxda u soo fasaxdaan hay'adahana aad si buuxda aad u amartaan aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa mar koowaad iyo mar labaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.